عليكم ورحمة الله وبركاته wardaga dogo naga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in kalfadhigii baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay maanta isugu yimaadeen ay mooshin ka keeneen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa. Haddaba baarlamaankan ayaa waxay soo xaadiray 178 xildhibaan waxaana cod aqlabiyada ku ansixiyay in ra'iisul wasaaraha lagala laabto xasaanadii ay u hayeen baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya 170 xildhibaan halka ay 8 xildhibaan diideen. Uu akhriyay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa wax sheegay in ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisu ay guda waayeen waajibaadkii ka saarnaa in ay dalka u diyaariyaan doorasho qof iyo cod ah oo ku dhacda si habsami ah oo xalaal ah. waa sida uu gudoomiyaha baarlamaanka u sheegay warbaahinta. Waxa uu gudoomiyaha baarlamaanka ee dowladda federaalk ee Soomaaliya uu halkan u faray madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu 30 casho kusoo dhiso ama uu kusoo magacaabo ra'iisul wasaare wata xukuumaddiisa oo hore u sii wada ama u sii dardargeliya howlaha u yaala dowladda federaalk ee Soomaaliya. Markii u horeysay ee ra'iisul wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya ku doonaba ahaadee laga keeno mooshin ka dhaca xilka qaadis waxay hore u dhacday marar hore oo ah dowladihii ka horeeyay dowladda federaalk ee Soomaaliya uu hogaamiyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddaba markay arrintaasi soo dhacday ayaa madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya waxa uu aqbalay codsiga ay u soo gudbiyay baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya oo inay xasaanadii kala laabteen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. Waxaana madaxweynuhu sheegay in uu soo dhisi doono ama uu soo magacaabi doono ra'iisul wasaare wata xukuumad tayo leh oo sii wada ama sii dardargelisa howlaha u yaala dowladda federaalk ee Soomaaliya. Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa waxa uu halkan uga mahadceliyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Waxa uuna sheegay intay wada shaqeynayeen uu ugu mahadcelinayo inuu ahaa nin shaqadiisa si wacanna u guta xilkiisa. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo hadda ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa hadda aan la hadlin warbaahinta kana hadlin xilka qaadista ay ku sameeyeen baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya saaka. Wareedyo ka imanaya Villa Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilkii ra'iisul wasaarenimo si ku meel gaar ah ugu magacaabay Mahdi oo ah ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Waxa uuna sheegay inuu sii dardargeliyo howlaha u yaala dowladda federaalk ee Soomaaliya aanay istaagin. waa sida warbixinta aanu ka helayno Villa Soomaaliya. Arrinta ka soo cusboonaada insha Allah gadaal ayaan igala soo socodsiinaynaa sidaas iyo nabadiino.